shirka iskaashiga dowladaha Puntland iyo Galmudug ee Soomaaliyeed war murtiyeed 27 Juun 2020 shir madaxeed ay ku kulmeen dowladaha Puntland iyo Galmudug oo ay kala hogaaminayeen madaxweynaha Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqoor ayaa ka dhacay magaalada Gaalkacyo 26 iyo 27 Juun 2020 shirku wuxuu qayb ka ahaa xoojinta iskaashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka si waafaqsan dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya shirka waxaa looga hadlay qodobo si guud u taabanaya danaha Soomaaliya gaar ahaan kuwa labada dowladood ee Galmudug iyo Puntland sida iskaashiga amniga nabadeynta dib u heshiisiinta iyo horumarinta dhaqaalaha waxaana ka soo baxay qodobada soo socda shirku wuxuu ugu hambaliyay ummadda Soomaaliyeed munaasabadda maalmaha xurriyadda ee 26 Juun iyo 1 Luulyo ee sanad guurada 60aad ee ka soo wareegtay xurriyaddii Soomaaliya madaxweynayaasha labada dowladood waxay ugu hambalyeeyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti shacabka iyo dowladda sanad guurada 43aad ee maalinta xurriyadda 27 Juun waxayna dhammaan Ilaahay uga baryayaan in uu xuskiisa nabad iyo midnimo ku gaarsiiyo labada dowladood ee Galmudug iyo Puntland waxay isla garteen ilaalinta iyo xoojinta midnimada Soomaaliyeed iyo hirgelinta nidaamka federaalka si waafaqsan dastuurka ku meel gaarka ah waxaa labada dowladood isku afkarteen inay iska kaashadaan amniga xoojiyaan dadaalada nabadeynta iyo dib u heshiisiinta iyo horumarinta dhaqaalaha sidoo kalena ka wada shaqeeyaan sidii deeqaha caalamiga ah loo gaarsiin lahaa bulshada Soomaaliyeed si isu dheelitiran labada dowladood waxay isla qaateen inay iska kaashadaan wada shaqeynta hay'adaha amniga xoojinta ciidamada xasilinta iyo la dagaalanka argagixisada shirku wuxuu isku raacay in hay'adaha iyo wasaaradaha labada dowladood ay ka wada shaqeeyaan hirgelinta qodobada ku xusan warmurtiyeedkan gaar ahaan dhinacyada amniga dib u heshiisiinta iyo horumarinta dhaqaalaha shirka waxaa lagu go'aamiyay in la joogteeyo shirka iskaashiga Puntland iyo Galmudug si ay uga wada arrinsadaan danaha ka dhaxeeya labada dowladood sidoo kalena tala midaysan ka yeeshaan guud ahaan aragtiyada siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka heer federaal ee 2020-2021 kana wada shaqeeyaan geedi socodka dhismaha dowladnimada Soomaaliya dhammaad run ahaantii shirkii labada bari uga socday labada dowladood ee Puntland iyo Galmudug ee xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya magaalada Gaalkacyo muddadii 26 iyo 27 oo maanta ah wuxuu ku soo gabagaboobay guul iyo afgarad buuxa oo ku salaysan qodobada uu halkan ka akhriyay Axmed Macalin Fiqi wasiirka amniga Galmudug Ilaahay mahadiis weeye ayadoo Galmudug iyo Puntland muddo dheer ay lahaayeen wada shaqeyn dowladnimo ay lahaayeen iskaashi bulsho ay ka wada shaqeynayeen nabadda iyo dib u heshiisiinta bulshada muddooyinkan dambe in maanta ay labada dowladood iyo madaxweynayaashii ay wada gaaraan heshiis ku salaysan sidii loo adkeyn lahaa nabadeynta iyo dib u heshiisiinta sidii looga wada shaqeyn lahaa oo loo xijin lahaa iskaashiga dhanka amniga sidii looga wada shaqeyn lahaa horumarinta dhaqaalaha iyo sidii aragti midaysan looga yeelan lahaa geedi socodka hanaanka dowladnimada Soomaaliya iyo khaasatan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya Ilaahay mahadiis weeye insha Allah waxaan rajaynaynaa shirkan labada bari halkan uga socday madaxda Puntland iyo Galmudug miraha ka dhashay inay wax badan u taraan labada dowladood khaasatan bulshada ku nool gobolkan Mudug guud ahaanna Soomaaliya oo dhan ay waxtar u noqoto hadii la ahaydmo aad iyo aad baan u mahadsantahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.